حلك عاشق موتومين حجتا دميتومين دارتا حيركم وقوين حيلا باغطيبون اللهم اجعلنا من العاشقين، اللهم اجعلنا من العاشقين، كل إله متعاشقين تنقيل عويس وعن أو ناكسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامج كيني برنامج كيني هل صن يهيس وحاسات كاركيسان مقعة ووح وناكسن مورك بني آدمك maskaxdiisa intaba u fiican sidaan horadii ku sheegay waxa ka mamnuuca meeshaydan boqdiga xiqdiga negativity waxa soo dhan qabiilka siyaasadda social issue hadba mawduuca taagan wiiga ayaan jeclahay inaan ka soo qaato dabeetana markaan waxaa ka hadalno waxaan mar walba dhex socon doona hees sida ka muuqata bahalkan arkaysaan wuxuu toos ula hadlaa barnaamijkaygan sidaan horadii ku sheegay halkee maanka dadka sidaa daraaddeed caawa hal san iyo hees waxaa igu casuuna asxaab kala duwan gaar ahaan fanaanaan jeclahay mustaqbal leh dhaqankiisa aan jeclahay hankiisa aan jeclahay da'diisana aan jeclahay inaan ku leekado filan dib lii soo celiyay Soomaa waa Cabdirasaaq Saciid wuxuu ka mid yahay ugu soo jiitay dadka sidayda jecel fanka organiga ah iga shiisha igu qabo waxaas aan lahayn waa nin talentkiisa fiican yahay sidoo kalena aan waa nin akadeemiga waxbarashadiisu aad u fiican tahay horena waan idinku sheegay fanka iyo aqoonta haddii kala haraan ma noqonaysaan taa markaan ka tago casuumadiisa caawa gaarka ah halkan waxay ka fadhidaa qorxleyda adduunka xamda oo nooga timid dalkaasi Sweden caawa qurba joogta inagu badan maxamed from New Zealand oo ka soo qaybgalayaasha iyaga ah waxa kale ee halkan caawa barnaamijkeena macnihiisa ugu horeeya ku furi doona inuu yahay weegan inda xasuusin doona mar labaad weegi tacadiga dumarka laga soo horjeeday adduunka globally and Somaliland sida daraaddeed halkan waxay la fadhidaa hiba mahad oo aqoon ahaan qaybta sharciyada ah humanitarian activist UN-ta ah oo raba inay message-ka aynu la gudbinayno wiiga tacadiga adduunka gaar ahaan Somaliland waxay ka leedahay hiba ku soo dhaw maxaad ku furaysaa caawa bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan aan ka soo qayb galo marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa Maxamed Nuux oo ah fanaan dhalinyaro ah ahna aqoon-yahan rajaynayana mustaqbalka dhow inuu fanka wax badan uu ku soo kordhiyo inta marka laga yimaado waxayna la jooga asxaab iyaguna qaaliya Cabdirasaaq Maxamed Xamda iyaguna waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka fariintan horta dirayo waxa weeyaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka aynu ka hadlayno waxa weeyaan waa dumarka iyo haweenka meel kasta adduunka ay joogaan sidaad ogtihiin waxaa jira 16 maalmood oo sanad kasta lagu xuso arrimaha khuseeya haweenka iyo hablaha yaryar xuskaasi wuxuu ku saleysan yahay tacadiyada ka dhanka ah haweenweynaha adduunka meel kasta ay joogaan gaar ahaan Somaliland kuwa jooga inta badan waxaa lagaga hadlaa tacadiyada u khaaska ah haddii aan Somaliland u soo noqdo waxaa jira baryahan waxaa soo batay kufsiyadii iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka reer Somaliland iyo hablaha taas waxayna tusaysaa inay u baahan tahay in si gaar ah loo eego xuquuqdooda waliba xuquuqdaynu ka hadlayno oo ah xaqii sharciga qofka haddii maanta intuu dambi iska galo aan hadhow toole maxkamad la geynin aan sharciga la horkeenin aan lala xisaabtamayn qof kasta way u fududahay oo dhibaato u geysan kara inan yar ama haween Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dowladda Somaliland shuruuc badan baynu u baahannahay oo laga soo horjeedo oo adag oo u heelinaya haweenka iyo hablaha yaryar marka fariintaas aan u dirayaa 15 cisho loogu qoondeeyay in wacyigelin gaara loo sameeyo waxay ku eeg tahay 10 bisha December aynu ku guda jirno waxaanu ololuhu soo bilaabmay 25kii bishii November
maalinta lagu soo xidhayo waa 10 December oo ah maalinta xuquuqul insaanka adduunka 16 cisho waxaa lagaga hadlayay arrimo badan oo haweenka taabanaya iyo hablaha yaryar oo ay ku jiraan maalinta maxaa la yiraahdaa disability-ga dadka naafada adduunka cid kasta ay yihiin gaar ahaan haweenka ay ku jirto maalinta xuquuqul insaanka iyo maalmo kale oo fara badan marka sanadkan waxaa bulshada rayidka ee Soomaaliland iyo wasaaradda khusaysa aad looga hadlayay looguna dadaalayay in sharcigii lagu xakameyn lahaa dhibaatooyinkan tacdiyada ka dhanka haweenka sidii loo soo saari lahaa marka anu fariintaas diraya waxaan leeyahay in sharci adag aynu ka yeelano si loogu heliyo haweenweynaha iyo dhalinyarta iyo hablaha yaryarba inta marka laga yimaado mahada waxaan leeyahay mar labaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad mar walba aad ugu heliso dadka jilicsan iyo dumarka iyo qaxootigaba aad ugu heesto oo fariintaada aad ku gudbiso suugaanta oo imika aad samaysay hees laga hadlayo tacdiyada ka dhanka haweenka 16 cisho ee ololuhu socdo intaasaan leeyahay assalaamu calaykum waad ku mahadsan tahay hibo ereyada taabatay runtii waan qiiroonayay haween marka laga hadlayo aad baan u qiiroonayay dhammaan wadarkiisa dadka meesha joogay productionkii hooyadii adduunka oo tacadiye loo keysanayo way dhib badan tahay markiiba suugaan bay ku soo laacsan mar walbana waxaan jeclahay inaan ku gudbiyo suugaan waxaan xasuustay hees ku jirtay Saalax Axmed Qaadiyeen iyo beene waa run inkastoo si fiican wax fasaday ereyada qaldamaan Soomaalidii halka qaldan wax ka eegaystaay halka iga taagnaada waxay tiraahdaa heestaasi haweenku mar weydin dhalay caloosha dhexdooda iyo laf dhabartay idinku siday dhab naaskooda aad dhaadhideen dhabtoodaad ku seexateen mar kale way idin dhaxaan dhaqmad bay idin noqdaan maxaan ku daraa intaan dhaliilaha way kabaan dhareeraa hadduuni yahay dhaliishay ka toosiyaan filkii way dhaafiyaan dhaleecana uma qalmaan intaasaa maanta aan ka soo qaadanaya tacadiga bal inta kaadiga inta waxay noo qabanayaan eega naanaab uskag loo dhareel hadday helaan waa markaa uma qalmaan tacadiga waan ka socon doonaa waayahay waa mar kale iyo barnaamijkeenii hal san iyo hees waxaan filayaa likeska iyo shareska aniga iga iman appreciationka iga iman doona wuxuu noqon doonaa isii because dadka la fadhiyaan arkayaa oo dadka organiga ah cabdirasaaq abti saaxiib inaad yar soo dhawow waad maasantay mahad maxamed nuux horta caawa waxaynu ka hadlaynaa tacadiga dumarka lagu hayo ama tacadiga dumarka haysta haddaan isku dayo kolley inkastoo layga aqoon badayey oo layga xirfad badayey haddana tan ka garanayo aan isku dayo horta dumarku qiimahay leeyihiin dad waaweyn abwaaniin fara badan suugaan waa lagu sheegay waxyaaba fara badanna waa lagu sheegay horta dumarku waxaan ogsoonay hadday dagaal tahay hadday nolol tahay hadday hoy tahay hadday sharaf tahay intaba kaalinta ay ka qaataan waynu ognahay dee soomaalidana sideedaba dee kaalintay nagu jiraan iminka carabtu markay dagaalamayso waad aragtay dumarkay adeegsadaan hadraawina waa kii lahaa kurimashada dagaalka iyo gulufka iyo colaadaha goobaha nafwaaga halka fooda la isku daro haddaan dumarku gubaabo kicinayn ilaa ingeysi birta kuma gumaadeen intaasoo dhanba waynu ogsoonnahay waynu ognahay inay hacoogaba kabaan dumarku markaa uma qalmaan in sharaftooda waa hooyada waa walaasha mar way kula dhalatay mar waad dhalay doontaa mar waad dhashay halkay noo taagan yihiin waa wax aynu xitaa si dee nolosha faamiliga aad arkaysidba marka waxaan odhan lahaa dumarka waa wax wanaagsan aynu ilaalino aynu ka dayno tacadiga at least haddaynan waxba tari karayn bal dhibtuunaan ka daysano ha haddaynan waxba tari karayn tacadiga marka tacadiga maqla tacadiga horta waa maxay bal canaantaa ka mid ah gacantaa ka mid ah qadinta aad qadinaysaa ka mid ah والله waxaa xasuustaa inta badan in waxaa xasuustaa guurka marka la kala tagay niman birax aan ka sheekaysan gabadhan ma jecla iska fur baan ku wuri mar walba is dilay iska fur baan ku wuri gabadha marka xogol ma taqaanaa meherkeeda badan wala fiirsiya
marka qaar waxay arkaysa markay kala tagaan ninkii uu qadinayay gabadhii waa tacadiga ka mid tahay tacadiga intaasaan markaa diman dhammayn karna caawa tacadiga intaa yahay laakiin barnaamijkeena wiigan oo dhan wuxuu intaas qusayn wiigii la soo wariyay intaas ayaanu kaga ka baxaynaa tacadiga halkan waxaan la joogtaa iyadana caawa xamda maxamed waxaad codsan kartaan laba xamda iyo maxamed haddaad hees nooga baahataan cabdirasaaq baa halkan jooga codsigiina halkan hal sarii hees muraamur haddaadna weydiistaan xataa ikacay dhiiga ikacay waa bilaabaynaa su'aalo xitaa tagay dad boqol su'aalo su'aalo waxaan rabnaa samaynaa barnaamijka halkan idinkaa idiinnaha midna ugu daro kelmaddii aad habeenkii dhawid ka wada sheegaysana maxaa ahayd haddaad annaga naga heshaan haddaad annaga naga heshaan waxaad u sheegtaa asxaabtaada ama saaxiibkaaga haddaad nala commentiga commentka noogu soo sheeg waxaan wax ka bedeli karno hay soo fadhiisan yaanan noqonin qoladii maraykanka basaasiinta ahayd maxay kelmadii common readers my association waxba ma hadlaan iyagu baalkii soo gela waxba akhrisan wada aamusnaanayaan kuma baahnin marka adiga kaasoo kale uma baahnin wana soo dhaliil haddaad naga heshayna saaxiibka noogu dir oo noo soo sheeg cabdirasaaq xamdi waxaad ka codsanaysaa cabdirasaaq hees su'aal waxaa rabtaa weydiin kartaa horta qaraamigu waxa weeye qaraamku hees maaha qaraamku waa laxamo gooniya laakiin hees iyo qaraam ma qaraam baan kuu qaadaa mise hees baan kuu qaadaa ha hees dhe markaa waayo qaraamku waa laxan gooniya luuq u gaara leh habdhac u gaara leh kaasaa la odhan karaa qaraam ama laxamadii qaraamka marka ma heesan jecle baan kuu qaadaa mise tuwaad jecesha baad iga codsanaysaa aniga dookhayga ninka dooqiisa aad buu wanaagsan aad very dhowr wey horta dee kolley dookhaygu heesaa waan wada jecelahay laakiin marxaladda caawaan taaganayo soo marxaladda markaan dareemayo wax allaala waxaad la jecesha u sii daa ayaan ku sii daynaya iyadii bulshada halkaa naga sheegaysa wada kurirka saa noo soo wada eegaysa heestan waxba geli maayo heestu baan qaadaya ubaxi jacaylkaay ada iga astaahila ammaan iyo bogaadin hoo iga hoo axdiyo xalaashee waalidkeed asluubtiyo ashaxiyo hidaha baray orinimaadu noqotaa allayli ayaan iyo asluub leh indha iyo indhays jecel isu aragti weeyo ha ku arkay ma kula tahay abti ilahay codka ku barakeeyo codka iyo meelo badan ba ilahay ku barakeeyo abti iyo meelo badan ba ilahay ku barakeeyo harsan iyo hees waxaan caawa ku xijinayaa sheekaba sheekay keentaa waa dhaxtaalkii sheeko barayfad oo beriga dhigan jira beriga ingiliiska baran jira caawada ka sheekeynaya barayfad ilaa puntland baan dhigtaa macallin imika dahabshiil ka shaqeeyo ku salaamaya macallinkaygii sacad baa markaa ka macallina meesha lawa puntland dabeete markii hore ingiliishda waa laba laskugu kicin jiray dadka waa lasla hadlaya aduu kalaas kalama maalinta u dhacaya arbacada meel baa wax loogu qoray marka wax lagu qoraya marks baa lagu qoraya dabeeto gabadh baa la istaajiyay aniga kana galaaska halkaas buuxa macal kuwii kala daaqada naga soo taago waa kulayl dabeeto gabadha ma waxay ku tiroon markaas la soo galo introduction ayuu qofka odhanaya balaa let me introduce myself my name is inta xamarka soo qabto ayay ku tiri can I ask you one question meesha dhiis baa salas ku haysta ayaa waxaa ku yidhi yes if it's possible isxariifinaya
xilligan ka sheekeynayna waa xilli hore aad gabadhii nin English ku hadlaan way adkayd waxay ku tiriyeen aanay can you tell me where is Somalia located in the continent of Africa oo macnaheedu yahay meesha sheegi kartaa qaaradda Soomaaliya qaaradda Afrika halkay kaga taalo anigana geographically xilligan maba aqaam ilaa waqti geographically waan ku xumaan galbeed bari ma gartay moogta meel allaala meel ku taalan garan waxa ku excuse me I don't know can you tell me Allah maxay iga siiyey inta indhaha saa u kala rugtay waa gabadha saa inta isu kala kicisay ay wallah waxay ku tiri don't beg me so beg Allah because I'm a student like you are dull ugly face Allah ya ilaahay ma yaabi kari waa gariiray markaasaa labada dhinac ilaa daaqadii maxaan odhan karaa waa kan maxaan ku jawaabi karaa ilaa imika qofku cuqdada beriga ka qaaday ilaa imika qof hadda wax garoo kuma idhaa in hoos ula hadla mooyaane ma ii sheegi karta waa ku caayiban isleeya moogta ya sheekadaasaan caawana kusoo dhex tuura meesha hees hibo maxamed xamda waad codsan kartaan hees وندي تاسو انا كادي بس دام يا هبلولا قفتي الهدبه في الدعاوه وي رالي ما كنت انا اقول انا فلي عدس يا هبو ما كاين يسال القلاص هذا ان انت لك بقول كيف بقول اسي هسن waxa iskala cusubtay hibo ma had hibelula way xulka way dumaro dal hibelula حرمة بدن حيلة جنو قف حلالة وحنانا حق مانكا حالا لابتا ما حناغضو وحماتك وما هايسو قلبي جيدا حشمت بي ميدو هايس دادك أولاً ما حماضو كالقعيل حفيداي حق جروي كي جعلات تحركيسا حلي باكا نفتوي يا حاسل سيسا بيت كاسا كبحنا هي بالأولى واي هي هبي هو أنبوان شعلا إنا صور نقصدو مجيل الذي با هون جد كيغو حني باي هو الله الله waxaan halkan rabaa inay qofka Allah qofkii hayo su'aal i weydiiya ana ka bilaabi doonaa dhankayga bidix حمدة شحش علي واد ويدين كتا سؤال الله لا سؤال شاد ربط السؤال الله لا سؤال شاد ربط عاوي يكون فرض حدا ما شاء الله اظن شاء الله وايه waxaan adduunka ku jeclahay su'aasha marka la weydiiyo waan jeclaaday haddaan jeclahay waan jeclaan doonaa laakiin qofkaas wallahi ma sheegayo wuu ogyahay qofkaas ma rabo inaan sheego لكن جعيل كانوا شيء كان هرلون برنامج ران قصو قبطه وان قدام بيا قف كان كو احترامه قف لا جعيل باهي وانا حريستا كدر سو انيغا اللي يقول له جعيل believe me or not اولاد جعيل شيء بان هي انا كل دلي marka qaar ma sada jacaylka naftigiisa ayaa ma hada ku jecel baaniga waa asig naftigiisa aniga jeclaaday balka war اللهم اجعلنا من العاشقين اللهم اجعلنا من العاشقين كل اله متعاشقين تنغيل ولي aniga ma garanay in la jeclaa anu waxaan jeclaaday ورن يران بان كنت علاضي وينان بان كنت علاضي نلوش ونت عائل كل آتي وح الله روح معنا حق كلية نلوش أنا ما أمس بكوس إلهي ما نتعل ده إلهي ما نتعل إنك تعلني بيجي نتعلنا مركز عائلكو نلوش قرحنا يا عائل كل جد هذا حدا في الفرن مجلي كرت بيجيس وكان أجي جوابان تعله بس وش قف كان خرطنا كل شيء سني كل شيء مركز هذا ولا أنت واي هي waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka waxaan Cabdirasaaq intaan ka loo weydiin Cabdirasaaq bay rabtaa inay xamdi weydiiso su'aal adiga
sweden maxaa ka soo gurinaysa su-aalo ya haye ii su-aala soo gurinaysa caawa okay weydii Cabdisaaq, haye goormay kugu dhalatay walaal inaad fanka ka soo biirtay? waa su-aal fiican horta weli fanaan ma ihi weli laakiin heesaabaane fanka weli hal hees oo aan leeyahay kumaan soo kordhin laakiin waxaan jeclay fankii hore ee quruxda badnaa ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa iyo fankinaan hadda taagan inaan labadaba iswaafajiyo insha allah heesa waan soo wadaa haddaan su-aasheedii hore ku noqdo fanka waxaan ku soo biiray waqtigaas ha usii fogeyn sanad ka hor baan kusoo biiray fanka intaan ka soo muuqday social mediaha bulshadii horta dee maanta bulshada waxaad saameyn ku yeelan kartaa markaad waxaad leedahay la hortimaadid waxaan kuu soo dhiibay xagad geysa adigu waxaan habeen kuu soo diray xagad geysa abti kuwaasina waa wax soo socda insha allah heesa badan waan hayaa oo abwaano fara badan leeyihiin qaarkood uu mahad leeyahay laxamada isagu leeyahay waa soo wadnaa laakiin da kulle waxaan u malaynayaa xagga alle ayaana weli ka soo wada dhammaan sanadkaa cusub nagama dhammaan doonto aniga isagoon iskugu tegaynaa sanadkaa cusub happy new yearka insha allah waxaan rajaynayaa wax fiican inaan bulshada hor keenno insha allah insha allah haddaan ku yar noqdo heestaad habeenkeena wada laxameynaad laxanka aduu lahayd qalcadda ugu horeysan qaadaya wow I do appreciate laxanka ereyadu baan habeen uu tusay mahad maxamed nuux dabadeeto halkii annagoo iska fadhinaa oo sheekaysanaynaa wuxuu ahaa hudheelka summertime iska sheekaysanayna oo iska fadhinaa ayuun buuri heestan ka waran ereyadiis ma ku qanciyeen deetana waan eegay waxaan ku uhi heestan waa hees fiican waana hees mustaqballo aad u wanaagsan deetana wuxuu iga yara kacay iga yara baxay wuxuu igu yidhi heesta laxankeedii waa kane qaado hadduu ku cajabin waayana iishe qalcadda ugu horeysa idii sheegay wuxuu yidhi xilka caashaq muu dumin xajitaadu may dumin darta xidhirhkumuu goyn xila baaqday buu noqon insha allah waxaasoo dhan waanu soo wadnaa atoo kacaa tan waa ku kacaa bas laxanka jirdo laxanka alxamdu miyad inama caadi ma markaa haddii la idhahdo waqtigu inoo wacnaanayahay ha iimaan xumaanina waad mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina gunta iyo gabagabadii baynu joognaa waxaan kaga baxayaa araartii cabdullaahi qarshe suugaantiisii hore ka mid ahayd amba waan jeclaa inaan soo dhaqsaday majilaaladiiba jidka igu xanibaayey shimbiraya howlalaa may duulisay inantaan jeclaa waa gabadhaas may duldhigaysay daawasho wanaagsan